subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay way xasuustaan baan malaynaya aniga magacaygu waa Fnaan waxaan sii wadaynaynaa qisadeena meeshii ku joogday qisadeedana waxay ku joogday markaan eegay aadam waxaan arkay indhihiisa oo markala noqday guduud daran waxaana ii muuqday ilka fiiqfiiqan oo aad u dhaadheer oo miciya ah wuxuuna ku dhagay gacmahayga waxaana bilaabay inaan si xoog leh u qayliyo kadibna wax walba anigu waxaan u arkay madow waana suuxay markaan soo toosay waxaan is arkay aniga isbitaalka jooga markaan israaday aad hadashidna waxaan maqlay aadam oo leh dhaqdhaqaaqin aniguna aad ayaan u argagaxay waxaana soo xasuustay wixii dhacay aadam xagee baan joognaa anagu hadda maxaase dhacay isagu wuxuu igu yiraahday hawlwelin gaari ayaa ku dhawaaday inuu ku jiiro balse daqiiqadii u dambeysay ayaan kaa badbaadiyey waana suuxday markaas ayaan halkan ku keenay anigoo cabsanaya ayaan ku iraahday aadam waxaan arkay indhahaaga oo casaaday waxaadna yeelatay ilka waaweyn oo miciye ah waxaad rabtay inaad cunto soo maaha aadam markuu maqlay hadalkayga wuxuu bilaabay inuu qoslo isagoo dhahaya maxaad ka hadlaysaa waxaad u muuqataa qof daalan oo riyoonaya ee hadda iska seexo may aadam hadalkan kuu sheegay kumaana riyoon waana ku arkay adigoo sidaas ah aadam ayaa wuxuu yidhaahday taas run ma aha isagoo u hadlayay inay wax dhacay ay ahaayeen wax hore afnaan hortaada ayaan joogay waxbana ma jiraan wax dhacayna ma lahan waxaa laga yaabaa waxaad sheegaysa inay tahay riyo ama mala-awaal ka dhashay naxdinta kugu dhacday anigoo la yaaban hadalka aadan ayaa waxay idhaahday aadam waxaan rabaa inaan hadda baxo maxaa yeelay hooyada ayaa iga welwelaysa kadibna si degdega ayaan uga baxay isbitaalkii gurigii ayaana soo aaday anigoo cabsanaya oo ka fikiraya hadaladii uu sheegayay aadam iyo wixii aan ku arkay markii uu miciyaha la soo baxayay kadibna guriga ayaan soo galay waxaan arkay Siciid oo la fadhiya hooyada iyo aabahay ayaan wuxuu igu yiraahday xagee ayaad ku maqneed maanta oo dhan aniguna waxaan ku yiraahday isbitaalka ayaan ku jiray Siciid wuxuu si jees la ii yiraahday isbitaalka miyaa joogday mise waxaad la joogday saaxiibkaaga shaqada kadibna anigu si qabow ayaan u eegay Siciid waxaana ku yiraahday arrintan adiga kuma khasayso aabahay ayaan wuxuu igu yiraahday gabadheedii marunba wuxuu u sheegay Siciid anigu waxaan ku yiraahday aaba waa run intii aan guriga joogay oo aan xanaaqsanaa ayuu u yeeray wiilkii aadam la yiraahdo waana wada hadalnay waana israacnay waxaana ka wada hadlaynay arrimaha shaqada markuu maqlay Siciid hadalkaas wuu hanaaqay wuxuuna yiraahday waa beenteed wuxuuna aabahay tusay sawir aniga iyo aadam aan ka wada muuqano waxaan ku yiri may daba socotay ilaa iyo markii wuxuu yiri may kuma daba socon laakiin si kama ah ayaan ku arkay markaas ayaa anigu waxaan bilaabay inaan u sheego wixii ugu dhacay oo dhan oo ay ka mid ahaayeen inaan ku sigtay inuu gaari ijiiro kadibna isbitaalka la dhigay balse Siciid ayaa yiraahday waxay sheegayso dhan waa beenteed wax ka jirana ma lahan anigu maxaa beenta ku falayaa kadibna waxaan damcay inaan muujiyo gacmahayga oo dhaawac gaaray balse waan ka waayay wax dhaawac ah waana aamusay balse markii aan aamusay waxaan arkay Siciid oo si la yaab leh ii eegaya wuxuuna qaaday jaakadiisa wuuna baxay aabahay hooyada ayaana u yeelay balse wuu iska tegay kadibna anigu waxaan soo galay qolkayga albaabkana waxaan ku xiray fure waan iska dhintiray wixii wicitaan ahaa waxbana ma fahmin maxaa dhacaya wax walba waan ka daalay fikir dheer kadib waan fikirayay dabadeed waan seexday balse lama filaan ah ayaan u arkay anigoo jooga guriga aadam aniguna aad ayaan u naxay balse aadam markuu i arkay ayuu i eegay indhihiisuna waxay bilaabeen inay casaadaan waxaan arkay ilka fiiqfiiqan oo aad u dhaadheer oo miciyo ah aniguna waxaan isku dayay inaan ordo laakiin wax faa'iido ah ma lahayn inaan ordo aadam ayaana wuxuu qabtay gacantayda wuxuuna igu dhuujiyey ilkihiisa aniguna waxaan bilaabay inaan si saa'id ah u ooyo waxaana si lama filaan ah u dareemay xanuun aad u daran anigoo argagaxsan ayaan soo toosay waxaan is arkay anigoo dhex jooga qolkayga daaqadiina ay furan tahay inkastoo aan hubay inaan xiray ka hor inta aan seexan balse waan la yaabay cidda fudhay kadibna waan labistay qolkaygana waan ka baxay waxaan arkay hooyada jikada ku jirta kadibna waan salaabay dabadeedna si degdega ayaan u baxay waxaana aaday shaqadeeda waxaana soo aaday dhankii ku yaalay xafiiskaygu inta aanan hadleen waxaan horteeda ku arkay aadam oo horteeda taagan aniguna waan gariiray aad ayaan u baqay waxaana bilaabay inaan dib u socdo aadam isagoo walsan ayuu yiraahday Fnaan ma fiican tahay aniguna waxaan ku yiraahday haa waan fiicanahay ma waxbaa jira aad ka cabsanayso aniguna waxaan ku yiraahday waxba ma jiraan markaas ayuu yiraahday waxaan rabay inaan wax kuu sheego aniguna waxaan ku yiraahday fadlan soo gal waxaad rabtidna ii sheeg waxaan ka codsanaya inaad ii raacdo markaan shaqada dhammayso qado waan ka cudur daaranayaa mana awoodo inaan ku raaco qadadaas fadlan qadadan kaliya ii raac qadadan waa ii muhiim inaad ii raacdo anigu kamaana ogolaal balse wuxuu ii sheegay inay muhiim tahay qadadan ugu dambeyn waan ka aqbalay waxaana wada tagnay meeradu dhoweyd meesha shaqada aadam ayaa wuxuu igu yiraahday waxaan rabaa inaan wax kuu sheegdo anigoo walsan ayaan ku iri waa maxay waxaad ii sheeganaysid wuxuu igu yiraahday waxaan rabaa inaan ku guursado ma aanan hadlin wax yar ayaana fikiray aniguna waxaa is iraahday wiilkan ma laha wax xumaan ah arrintaas aad ku aragtay habeenkiina waxaa laga yaabay inay ahaayeen waxaan macquul ahayn oo aad ku riyootay maadaama aan si fiican u seexan haa waa mal awaal markaas ayaa waxaan ku iraahday waan ogolaaday
aniguna waxaan bilaabay cunista qadada isaguna ma uusan cunin wuxuuna yiraahday gaajo ima hayso waxaan ku sugayaa inta aad cunayso cuntada. Aadam ayaana wuxuu bilaabay inuu iga sheekeeyo caruurnimadiisa iyo noloshiisa meelaha uu soo maray iyo waxyaabaha uu soo arkay. Dabeedna waxaan gaarnay gurigayga wuuna iga tagay waxaana u kacay qolkayga anigoo faraxsan. Fikir ayaan ku sii jiray ilaa aan seexday. Markii aan soo toosayna waxaan iska bedelay dharkii aan qabay waxaana soo aaday miiska cuntada waana quraacday sida caadadii ahayd. Balse waalidkii ilama uusan hadlin wixii ka dambeeyay wixina dhex maray aniga iyo Siciid. Markii aan taleefankayga eegay waxaan arkay Siciid oo ii soo diray muuqaal. Markii aan furay muuqaalkan aad ayaan u naxay. Aadam ayaana muuqaalka ku jiray isagoo cunaya shimbir aniguna isma aanan xakamayn. Markaas ayaan bilaabay inaan la hadlo Aadam waxaana u diray muuqaalka waxaana ku iraaday waan kaa baqayaa waxaana tahay bahal sax ah maxaa yeelay maxay yihiin arrimahan aan kugu arkay Aadam. Isagu wuxuu yiraahday anigu baal ma ihi fadlan ii ogolow inaan wax walba kuu sheego ee isdaji. Markaan wax yar degay ayuu yiri anigu baal ma ihi waxaan ahay vampire rumaysa ama rumaysanayna anigu dadka bini'aadamka ah ma cuno sidoo kalena ma dhaawaco qofkaan jeclahay. Anigu markaan maqlay hadalka Aadam waxaan bilaabay inaan ooyo waxaan ay qabatay naxdin aad u daran anigoo xasuusanaya wax walba sidee bay arrimahan oo dhan hal toddobaad gudaheed ku dhaceen. Kadibna waxaan ka baxay guriga aad ayaan u weerarsanaa ilaa aan ka fariistay mid ka mid ah shidaadyada ku yaala magaalada dhinacooda. Markaas ayaan arkay Aadam oo fadhiya agtayda isagoo leh waan ka xumahay Afnaan cafi waan ogahay inaan kuu sheegay been oo aan ku khiyaameeyay balse runtii ma awoodo inaan ku waxyeeleeyo. Aniguna waxaan ku yiraahday suurtagal ma aha inaan nolosha kula wadaago tanina wax macquul ah ma ahan. Isagu wuxuu yiraahday maya ma aha wax aan macquul ahayn macquulna waa laga dhigi karaa. Waxaan ku yiraahday ka waran qoyskayga iyo saaxiibadii haddii arrintan ogaadaan. Wuxuu yiri uma sheegi doono inaan ahay vampire waan isguursan doonaa nolosheedana sidaas ayaan kusii wadan doonaa fadlan ii ogolow inaan ka guursado hana iga baqin aniga. Aniguna waxaan ku yiraahday fadlan ii ogolow inaan kasoo fikiro arrintan cadaadisna ha isaarin waxaan rabaa inaan muddo dheer kasoo fikiro. Siciid hadda wuxuu ogyahay sirtayda. Aadam ayaa wuxuu yiri dhib ma laha hadduu sirteen ogaado aniga ayaa ka tirtiri doona xusuustiisa waxbana ma xasuusan doono. Waxaan kuu ballan qaadayaa Afnaan inaan wax ku yeeli doonin. Aniguna waxaan u ruxay madaxa dabeedna guriga ayaan aaday anigoo ka fikiraya wixii dhacay waxaana dareemay sidii inaan ku jiro riyo oo kale mana garanayo wixii dhacay oo dhan. Waxaan rajeynayaa in wax walba ay fiicnaan doonaan balse qalbigayga wuxuu ii sheegayaa inaan ka laabto go'aanka aan qaatay oo aanan guursan Aadam. Waxaana niyadeyda iska iri haddii aad guursatid Aadam waxaad maalin kasta arki doontaa waxyaabo kaa naxiya. Asxaabi qaybtii labaad ee sheekada intaas ay ku dhamaatay maxaa dhici doona qaybta saddexaad. Ogaadan haddii aad muuqaalkan 200 likes ay gaarsiisaan qaybta saddexaad waa soo fasaxaya balse haddii aad gaarsiin weydaan qisadeeda waa la laabanaya mar dambena ma soo daynay qaybta saddexaad. Haddii aad rabto inaad qaybta saddexaad soo daayo waa inaad muuqaalka gaarsiisaan 200 like sidoo kale comment-ka ku soo qodaan magaalada aad iga daawanayso iyo wiil gabar qofka aad tahay.